الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اخواتي في الله، waxaan rabaa inaan insha Allah taala wax ka iraado oo wax ka dhaho udxiyada cashar ku tacalluqo ama kalima ku saabsan udxiyada. udxiyada waa neefka maalinka ciida Carafa la gowraco weeye. saad ogsoontihiin walaalayaal, ilaahay baa jideeyey subxaanahu wa tacaala biqowlihi fasalli lirabbika wanxar. nabiga waxaa lagu yidhi rabbigaaga u tuko, asagana maaragtay sababtiisa wax u gowrac. ilaahay baa cibaadada iska leh, gowracna waa cibaadadu ka mid yahay. man dabaxa ligayri illaahi faqad ashraka diw. inaan ilaahay ahayn qofku wax u gowraca waa shirki buu ku dhacay weeye. marka cibaado weeye gowraca. ikhwaani, udxiyada siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku sheegay, ilaahay wuxuu leeyahay liyadkuruu isma allahi calaa maa razaqahum min bahiimati اlancaam. ilaahay magaciisa lagu magacaabaya marka la gowracayo, oo ilaahay wuxuu ku irsaaqay oo ah min bahiimati اlancaam, nicmooleyda saddexda ah, geela iyo ariga iyo looda wey. saddexdaas ayaa la gowracaa. walaalayaal, marka shuruud bay leedahay. neefka la gowracayo shuruud buu leeyahay. shuruuddiisa waxaa weeye assalaamatu min alcuyuub. waa in neefka uu maaragtay oo ka caafimaad qabo wax ceeb la dhaho dhan. waa inuu neef saliim ah oo caafimaad qaba uu yahay. waxaana uu daliilaha nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi arbacun laa afar udxiyo kama guddo buu yidhi. afar udxiyo kama guddo. alcawraa albayinu cawaruhaa, mid indhoola ah, indhoolkeedana uu muuqdo oo indhola, udxiyo ma gudayso. waalmariida albayin maraduhaa, iyo mid jiran ayadana oo jiradeeda ay muuqato, ayadana kama gudayso. waalcarjaa, sidoo kale mid maaragtay dhutinaysa oo jiis ah oo lugla, oo maaragtay jiisnimadeeda ay muuqato oo waxaan socon karin ah, ayadana kama guddo. waalcajfaa alatii laa tunqi, ay alhaziila alatii laa mukha lahaa lihuzaaliha, iyo mid caato ah aanba dhuux lahayn, ayadana kama guddo. neef toosan oo saliima, caafimaad qabo, oo hilib leh ayaa loo baahan yahay. sidoo kale walaalayaal, udxiyada waktigeeda, gowraca waktigeeda wuxuu bilaabanayaa min bacdi salaati alciid. salaada ciida Carafa marka lasoo tukada ka damba ayuu bilaabanayaa, sidii xadiiska ku soo arooray. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man dabaxa qabla الصalaati fainamaa dabaxa linafsihi. qofkii salaada ka hor gowraca kaas waa hilib uu isaga iska gowracday wey. waman dabaxa bacda الصalaati, salaada ciid ka damba qofkii gowracana faqad tama nusukuhu wa asaaba sunnata almuslimiin. laakiin qofkii salaada ka damba gowraca kaas waa sunnadu waa waafaqay, ilaahayna waa ka aqbalayaa. ma garata? sidoo kale waxaa loo baahan yahay marka la gowracayo liyadkuru isma allahi, in ilaahay magaciisa la sheego, bismi illaahi wallahu akbar in la yiraahdo weeye. ilaahay magaciisa subxaanahu wa tacaala lagu gowraco. sidoo kale walaalayaal, waxaa kaloo loo jideeyey qofkii oo neefka gowrace udxiyo suubsaday inuu cuno
udxiyadiisa inuu haddana hadiyeeyo aqaaribta qaraabada iyo jiiraanka faqiiriinta masaakiinta inuu wax ka siiyo ayaa maaragtay ayaa ayadana loo jideeyey. neefka markuu geel yahay waa inuu 5 sano jiro, neef 5 sano jiro inuu yahay. hadday lo' tahana sanatayni 2 sano waa inuu jiro. hadday maaragtay ari tahana ari yahayna waa inuu yahay neef sanad jiro oo sanad buuxiyey waa inuu yahay. sidoo kale walaalayaal gowraca maahan dhiigun iska daadi oo bes maahane inamaa taqsidu bicamalika wajha allah, ilaahay dartiisa waa inaad u gowracdaa wey. cibaado aad maaragtay adigoo cibaado u haysato ilaahay dartiisa magaciisa aad ku bilowdo waa inaad u gowracdaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu ataqwa minkum. hilibkaas iyo dhiiggaas ilaahay agtiisa ma tagaayaane laakiin alla ka cabsigii baa ilaahay gaarayo. alla ka cabsiga ayaa maaragtay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarayo. taasaa maaragtay ujeedada taas weeye. waxaa kaloo maaragtay looga baahan yahay qofkii maaragtay oo udxiyada samaynayo uma bannaano inuu maaragtay tintiisa oo iska jaro ama tintiisa wax ka gooyo lama ogolo. inuu iska xiro iska dhaa inuu wax ka gooyo xataa lama ogolo. walaa kadalika cidyaha inuu iska guro, siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idaa dakhala alcashr 10ka haddii lasoo gaaro 10ka caraf hadday bilowdaan oo araada axadukum an yudaxi qofkiina uu maaragtay uu doono inuu udxiyaysto neef gowraco falaa yamassa min shacrihi walaa basharihi shay-a, tintiisa iyo ciddadiisa waxba yuusan ka goynaa leh. bishi mar hadday dhalato tintan iskama goynaysid maaragtay ciddiyana iskama jaraysid ilaa neefka aad ka gowracdo. sidaas wey walaalayaal. sidoo kale waxaa looga baahan yahay qofkii uma bannaano qofkii maaragtay udxiyada samaynayo oo neefka gowracayo uma bannaano inuu gado neefka maaragtay uu gowracay haraggiisa ama maqaarkiisa uma bannaano inuu soo gato liannaha bidabxi tacayanat lilahi bijamiici ajzaa'iha. waxaasoo dhan ilaahay dartiisa loo suubiyey marka inaad soo gadatid maaha. sidoo kale qofkii oo kuu gowracay kan u qaado yacni kiri u qaado ama ujuur ahaan u qaado lama dhihi karo, ma bannaano. sidaas maaragtay waa loo jideeyey. qofka ilaahay karsiiyo marka waxaa la doonayaa inuu maaragtay oo maaragtay uu udxiyo sameeyo ayaa looga baahan yahay. siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiskii man wajada sacatan walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana. qof ilaahay xoolo siiye, xoolo nool ha ahaato ama lacag ha ahaato, nin ilaahay kartidaas siiyey oo neef soo gadan karo ama neef keensan karo baadiyi meelahaas ka keensan karo oo xoolo haysto tabar buu u hayo aanba maaragtay danaynin meeshii dadka ay ku tukanayaan waxba ha soo aadin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka udxiyada waa cibaadaday ka mid tahay. marka qofka ilaahay wax siiyey waxaa la doonayaa inuu udxiyada uusan ka qadino oo maaragtay udxiyada insha allahu tacaala uu ku dadaalo. sidoo kale geela markuu yahay geel iyo loodaba waxay ka gudaan 7 qoys ayaa geel isku darsan karto loodana isku darsan karto. marka laakiinse ariga hal qoys wey, hal cid baa maaragtay ayay ka gudaysaa. marka walaalayaal ilaahay khayrka hana waafajiyo, maalmahaas khayrka badan ilaahay hana gaarsiiyo. wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.